dhaqanka Soomaali u yaalana waxay ahayd dhaqanka Soomaali u yaalana waxay ahayd qaalidow boqorow dhaqankaas wuxuu ahaa qofkii dumar hadal xun dooho wax laga qaadi jiray mag waa hadal xun ogow صح hadda ka hor baa taariikhdan ay ku qoran tahay google-na way ku jirtaa youtube-na way ku jirtaa ilaahay amarkii aydo aad u bareedhay ee aad u soo fariisatay baraha bulshada horta waa mid aad eedda weeye maxaa yeelay indha shareer waraa record baa ku yaallo nacima dayman dumar baa ka horreeyey oo aad cayday oo qabiil walba iskugu jiro shanta soomaaliyeed ama jabuuti ogaadeyniya soomaaliya n f d somaliland meesha alla meesha rabaa ku noolaaday dumarka ayada ka horreeyey buu cayi jiray laakiin tan naciima wuu eeday wuxuuna ku eeday xorriyad ayuu ku socon jiray laakiin maanta asagoo maanta yurub joogo gaar ahaan meesha uu ka degan yahayna dhammaan aan wada ognahay xorriyaddii ayuu beelay indha shareer ayuu ku socdaa maxaa yeelay wuxuu og yahay nimco caydeeda in aan looga daba harayno maxaa yeelay haddaan kuleeyahay dhegayso nimco ninka qabo ilka casaqays baa la yidhaahdaa aqoonna wuu ii leeyahay ninuu aad iyo aad u aqoon maaragtay u yaqaano oo ay wada kulmeen ayaan ahay ninka aniga waagii aan joogay warta nabadan ku baashaayaan dhihi jiray waa sidee soo xawil wallahina been kuu sheegayni xaggee joogtaa degmada cabdicasiis waa beri ninka asaga wuu ka hadli karaa wuxuu ku qasban yahay inuu indha shareer ku qayso horaa u soconaynaa dadku waxay ku soo qorayaan indha shareer ku socdo waxaa weeye ma garatay markay dhegeyso waan soo gaabinaya dhegeyso marka canda weynaan rabaa wax yar iga raali noqo baarkin iga galbeeyo marka canda weyne ama ha hadlo ama ha daqdaqleeyo dadka soo dira ayaaban oga aniga dadka soo diraayo ayaaban ogahay aniga ee caay dhahayo oo nimco abseeska ku baan ogahay hadda ka hor wiil baa life buu ku jiro wuxuu yidhi warniyo waxaan waayuu dhahay gabar ay nimco is haystaan fiiriya gabar nimco mucaarad ku oo nimco dacaayad ka faafinayso ama meel public nimco magaceeda la taagan naciima diamond oo waxaan waayuu dhahay nimco ka qurux badan baa waayuu dhahay u fiirso nimco qofka mucaarad ku nimco waa qof nolosha ka dhacay oo fool xun oo absees ku qof bini aadan oo caadi ilaahay qurux siiyey kama adahay never marka waxaa weeye caawiya shanta soomaaliya aad iyo aad baan idin salaamayaa horay u socda idin leeyahay xalfadan boqoraddii macaabu ku casuumaynaa naciima diamond naciima maqlaysaa be boqor waa ku maqlaa I love you يا أبو العباية. ما شاء الله والله كلمة داس عايز تويدار 60 بواح كستو وحن موقت والله وبالله وطي نمر كنسر بيكون قرصة كنسر كابتن أيوب وقت سلامي يا لجن سودو كابتن كين واجوا كابتن أيوب سودو يو بدحونا مستقبل شمس الصومالي كابتن أيوب هذه أدبان وسلامة يا ولدي ذا كابتن أيوب سودو dhaqanka Soomaali u yaalana waxay ahayd qaalidow boqorow dhaqankaas wuxuu ahaa qofkii dumar hadal xun dooho wax laga qaadi jiray mag waa hadal xun ogow صح hadda ka hor baa taariikhdan ay ku qoran tahay google-na way ku jirtaa youtube-na way ku jirtaa ilaahay amarkii wiil baa wuxuu suubiyey gabar Soomaaliyeed buu horaadka ka taabtay waa ugu taabtay bas ogow
labaatan wiil baa u dhimatay candhaweere waad maqashaan soo maaha si toosa ma qeybta mise bismillah meesha nuuraani noogu tur boqor may maqashaan haa waa lagu maqlaa boqor waa lagu maqlayaa boqor هذا النقطة تلفنا قرينا كله وعنده وين ولا برايفت بالي يوصل وعيا عنده وين don't call me كسع بقر كسع حاوي ضد حاوي يرتد النمع قروح إلهي ودلي ودني نمو تجعل ما أنت النعيمة حارس كيجا dadka ay saaxiibada la tahay oo ugu badan de maanta magaalada Minnesota qofka joogo mise Mareykanka joogana dib u garanaya dadka ugu badan ay saaxiib la tahayna gaar ahaan marka la dhaway waxa u badan waa la og yahay alxamra u badan maxaa yeelay qof xun oo qabiilistad ahaan lahayd maanta hal qof oo tolkeedan bay saaxiib la noqon lahayd laakiin ilaa amarkii shanta Soomaaliya saaxiib la tahay oo walaal ay la tahay laakiin dadka ugu badan ay saaxiib yihiin nafta isku raam waxa yahay alxamra weey waxaa kuu saaray cadhaweyna kuu saaray horta maanta waxaa sumcad xume ilaahay kugu dhaarshay nin raga oo nin ragnimo sheeganayo dee oo intuu meel soo fadhiistay gabar de nimco kelina maaha soomaali waxay u maleeyaan nimco dayman kelina u caayay u maleeya laakiin dumarka soomaaliyeed qof uusa caayin ma jira dumarku la caaytamaa rag iskama celin kara gurigiisaan hortaagnaa anoona hub wadanin garan yar wato oo kiyaale ay xiran yahay war soo deg baan ka kari waa soo deg awowgii lagu baashaakaysanay soo deg waa fulay laakiin dumarka sida loo caayo buu yaqaanaa jaq internetka gangsterka internet waa gangsterka internetka hadalka idin dhahay dhegeysta shan Soomaaliyeed laakiin aniga horaan u sheegay haddana inaan kusoo celceliyana ma rabo dee inta aad rabto xaaskayga waa caayin kartaa waana ka hadli kartaa laakiin maalinkan ku arko kadib haddaa caaydo dee anigaan nar ma ihide midda kalena waxaa weeye caayda aad maanta ani xaaskayga inaad caaydo aad u bareedhay ee aad usoo fariisatay baraha bulshada horta waa mid aad eedda weeye maxaa yeelay indhasha